mahad celinaya guddiga qabanqaabada doorashada qaasatan gudoomiyaha iyo kooxdiisa sharafta badan hawsha wanaagsan ay soo qabteen waqtiga gaaban waxaan kaloo u mahad celinayaa ummadda Soomaalida magaalada ku nool si fiican ay hawshan ay u galeen waayo haddaadan sidaas sameyn halkan ma soo gaari lahayn tan saddexaad waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay jaamac oo gudoomiyahana hore oo ku dhawaad 3 sano soo waday aan ognahayna dhibkii rafadku soo maray aan ognahay sidii la shaqo la'aanta say ku dhacday doorashan soo galnay xamaasada iska wadataa waan dareemayaa afar musharaxiin aan ahayn waan kala dugunay waan kala fognay waxa laga yaabaa isku adkaar iyo sheeko isku program aan ahayn halka maanta soo afjira soo dhamaato waa iga cod Soomaalida magaalada degan ayanta dhawaa axad hore aan wada hadlayna waan ka hadlay baahideena aad u fara badan baahida afraha badan waxaan ku soo koobi karnaa wax kaga qaban karnaa hadii annaga aan noqono hal far marka waxaan idin codsanayaa anaga ku dadaalay inaan soo sameeyo maamul tayo leh oo u bisel baahida bulshada ku nool magaalada Brooks inaan soo dhiso hadoo Allen idinka sugaya waxaan u taaganahay aan u soo istaagay hawshan u galayna waxay tahay dib aan ogahay inuu ka jiro magaalada ha noqoto maamulka city ka jiro ha noqoto anaga gudaheena dibna haysta lafteeda marka fadlan taayada ku soo toos kaliya gudoomiye meehay idinkan gudoomiyada ahay Soomaalidna gudoomiye whatever meel kasta taa waa iga dardaaran waxaan la dardaarmayaa walaalahay sharmarka iyo laba ilhaan waxaan leeyahay tartan waan wada galnay waa iska doorasho iyo xamaasad iyo siyaasad iyo campaign kala duwan I believe in wax kasta aan wada qabsan karno hamiga ku soo istaajiyay inaad Soomaali hogaamiye u noqoto hadii kugu jira waan u baahanahay inaan ka wada shaqeyno waan u baahanahay fikirka kugu jira aad u soo istaagtay ummadda u baahan ana u baahan inaan ka wada shaqeyno u baahan aan beerino marka let this not be the last day hadda ha noo bilaawato isa noqon meesha ugu dambeysay shacabkeenan waxaa jira odayaal dhaqameed oo dhaqanka Soomaaliya si fiican u garanay waxaa jira dad dawladda Soomaaliya ka soo shaqeyn jiray waxaa jira dad halkan iyo Soomaaliya ama meesha qaxooti loo ahaaba shaqooyin fiican ka soo qabtay xirfad leh waxyaalo badan qaban kara inta waan u baahanahay odayaal kama maarano aqoonyahan kama maarano hooyooyinka kama maarano gabdhaha kama tagin marka waxaan rabaa in aanan meel kaga tagin oo baahida magaalada Soomaalida ku haysata aan hal dhinac u soo wada jeesano igu taageera waan ka wada dadaalnaa hadoo Allen marka waan soo koobayaa xilkan aan qaaday igu duceey inuu san noqon mid lagu hungoobo waxaad kala ku darsataan inuu san noqon xil ama jaga hal qof loo dhiibo gudoomiye loo magacaabo faraha loo qaaday waan ku soo celinaa mar kasta waan soo baahanahay waan ka wada shaqeynaa hadoo Allen waan wada joognaa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh